سودانكا سمرون قد بورسي وين سودان سليمان الله وين قفك سدحاد waxa weeyaan boqor buur madow walaalkay boqor buur madow oo qabiilada dhexe ama isaaqa ka soo jeeda oo habar jeclaa oo dubay ku nool walaalkay qaali oo hawshan intaanan labadeedu wada hadal isagu isxilqaamay oo hawshan galay oo aaqan intuu uu ka dhiidiyay ayuu dadku garanaya u diray waa loogu yeeray way wada hadleen wuxuu yiri wala sheekaystay bal warkaagiisii sidee wax u dhaceen sidee wax u jiraan uu u waramay wuxuu u qirtay kuma ben fariimayo boqorku nool yahay waa marxatiga nool wuxuu yiri gabadhayda waan ku khaldamay waa xaaskeygii waa oorideydii waa marwadeydii qaladka aan sameeyay marada igu celi maartay magtana iga bixi mooradana iga bixi xaal marintana iga bixi kolka isagu wuxuu ku tala galay boqor buur madow inuu gacmo geel jiray hoos baa loo dhaqaayay inteena ceebto ama sii weynaan ama aanay isku tuurtuur noqon inuu isagu dusha u rito oo hawsha ka odayeeyo waa sidii dhaqanna lagu arki jiray qof damiir leh ama qof ummad maartay u ah oo qaal boqor ama suldaan ama ugaas u ah falkii u yeel lahaa ayuu ku dhaqaaqay qoladii jilibkii ninka caaqani ka soo jeeday baa tiri ninkani wuxuu nagu doonanayaa magac annaga isku filan reerkayga iyo inuu baabiyo raba annaga ninkan inankaygu yahay hawshiisa faraha nooga qaad arrintii dhanka kale loo rogay kadib annaga wada hadalay wuxuu yiri farxaanow waji kale baashi yeelatay raggii waxay yiraahdeen baashan faraha nooga qaad hayo marka annaga isku filan jilbi ahaan ayaan kula xaalaynaa samroon ama gada bursi ama bahabar cabdalle ama makaahil adeeraday ama tolkay qalbi wanaagsanadooda iyo dadnimadooda dhibanayaal iyagoo ah bay buuramayntii ka yimaadeen bay hargeysa u yimaadeen sidii la arki jiray geed hoostii inaan maaragtay meel la fadhiisto la garamo oo wixii saxarka laga qaado oo dee sidii dhaqankee Soomaaliya waxaan jiray la soo fadhiisto markay la fadhiisteen ay malaha mar kalena la fadhiisteen mar saddexaadkii lagu kala bixi lahaa oo yiraahdeen cadayma la kaalay oo wixii inaguna hadweeyay anaguna oo sidii lagu ballamay ee loo jaray oo walibana suudaanku ugu weynaa oo suudaan Saleebaan ahaa ay ku been fariiman doonaan tolkay markaa way xanaaqeen iyagoo inta u soo maray oo inta haddana u soo maray ballankii ay yimaadeenna loo jaray oo telefoonadii laga qaadi waayay meeshii loo iman waayay way iska shir jiraayid bay qabteen way iska baxeen buurmay ku noqdeen hawshii iyadoo oo sidaa ah bay iyo qoladii oona salaadiintii la yaqaanay ama oqaashi la yaqaanay aan ahayn oo kuwa dib jiro dariiq iska taagana baa halkii iyaguna waanu jawaabaynaa yiri maartay Safiya tolkii ka socday waxay ku hadleen taataqi iyo matagi ku jira media waligi kama baxayade haday ku amaanan yihiin iyo haday ku ceebaysan yihiin bas wax dhaqan Soomaali oo lahaan jirtay gabadh xil lagu leeyahay oo xila wala reerkan isaaq wan kala guursanaa oo dayada isku taala iyaguna ma guuri karaan anaguna ma guureen ilaahay baa iska baday inaan iyo abtiinay waan isku ahayn aflagaada igama tagayso waxaan maartay waan garnaqsanayaa waxaan u garnaqsanayaa sidii dhaqan laga arki jiray oo walibana ku maartay hadalkii ay tiri Safiya tusmo walaashay qaali halkay kuwaas sida khaldan uga fikrayeen sida wanaag ka fikraysa leedahay arrintii in la dejiyo
oo maaragtay la damaso oo aniga magacayga dad ku dhintaan ama dagaal ku dhaco ilaahay baan ka hoos galay farxaano qofkii hadlaya please inuu maaragtay colaad la horiyo ma rabi wixii igaari ya marka wax weeyaan welibana caawa bande waqti baan haystaa waan nila hadlaykaa waxaan aad iyo aad iiga xanaajiyey oon ka xanaaqsanahay nin magac isu sheego oo la yidhaahdo dee bini-aadanku waxa weeyaan inuu hadduu samafal samaynayo uu wanaag samaynayo oo maaragtay dhexeeyo noqonayo ama haw damiirkiisu siisan waayey waxaan dhaqan soomaali u lahayn inuu oo ka diiray inuu maaragtay si anshax leh oo xanaf lahayn inuu u hadlo inuu tolkay oo soomaali halkay ka taagan yihiin iyo magacay ka leeyihiin soomaali wada taqaano oo welibana aan ka soo jeedno fac alla weyn oo ugaasyo intaasoo dhowr iyo 10 ugaas 1500 kun gaaraysa sano isa soo dhexlayay other empire la yiraahdo google-ka ay ka eegi karaan qofkii jaahil qofkii wax garanayba oo taariikh maarta cadceed duur joogto sacab laguma daboolo taariikhda samaroon gudbursi fanka Soomaali ku daadato raggii laga soo gaaray baan ahay oo welibana tusaale ku ah ciyaaraha ay tolkay ciyaaraan hablaha iyaga iyo dumarkaygu ku ciyaaraan aroosyada iyo xafladaha abaayada wacan abaanduulaha abantusiga abanu lahayn abantusigu waa Rwanda iyo Burundi faas iyo taariikhda ayaa leenahay oo other empire loo dhanay geeska Afrika laga yaqaanay siiba Turkiguna ila qaad gaar la siilaha oo imika dib ina boorka looga tufo maadaama hay Soomaaliya iyo Turkigu walaalo noqdeen ilaahay ka jisaaysiyo bisha Ramadaan waan ducaynaynaa Turkiga sidoo uu garab joogsaday ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed iyo sidoo ciidanka loogu dhisay waanu hambalyeynaa waanu ducaynaynaa marka waxa weeyaan ninka meesha youtuberka lacagta ka sameynaya inuu annaga nagu tuntu yiraahdo isaaqo gadabursi masaakiin weeyaan had ka adkaateen ina war ani ninka kan caaqan iyo groupkiisu waran bay igu taagan dasa waranka ninka igu nuujiyay igu weewciyaba ayaa ka sii xanuun kul ninkan qof dirteena ma jiro damiirkiisu hadduu diro inuu aniga igu tunto warde ma Allah ma qal mu dadnimo maaha ya waxaan badan gashayna hadday Soomaalinimo tahay inuu anagii daalac noo sii raaco oo dhulka nala dhaco warde ma qaadan karno ninkaasi wax weeyaan inuu talaabo weyn dib u qaado ummadda Soomaaliyeed hadduu gaf naga galay Soomaali kale yaanu gaf ka galin habarto anshaxa iyo asluubta iyo dadnimada iyo dhaqanka Soomaaliyeed sida dad loola hadlo aqalkii aabihii mu joogo gurigiisi kama hadlayo beertiisi kama hadlayo ummad Soomaaliyeed oo qowmiyadda Soomaaliyeed mid kamida ayuu la hadlayaa inuu maartay looma ooyaan ka dhigo wardeen uma qalanade namana qabato marka sheekada ma soo noqday ani iyo boqor buurmado ilaahay jisaaka la khair ilaahay ha ka jisaaysiye iyo Suudaan Saleeman baa isku xiray sheekadii waxay noqotay Ramadaan baa soo gal waxa la yiri farxaano boqor buurmado wuxuu yiri baashi waa dabaqday labadii reer isku jawaabeen handajino wasi laga arki jiray anigu markaa inaan imika sida iyagu caaqa u noqdeen ama Amazonian dadka diintu gaadhinay awaanta inaan u hadlo oon aytamo waniyo raggan waan wada dhalanay waan saqabnaa caruurba maartay dad asxaab aad iyo aad igu qiimo badan oo hore iyo dambeetaba jira waqti aan soo wada qaadanay nolol aan soo wada qaadanay
dee oo ehel iyo macruufo iyo asxaab aan isku nahay markaa isaaq ma caayo ayna igama geeyaan iyo soomaaloo dhanba dad ceebka saliima oo dhaqan leh oo asluub leh oo soomaali taqaano oo ku faanta baan nahay haybadan lahayn iyo sharaftan lahayn iskama qaadayno sidii la naga filayay la nagu yaqaanay baan u hadlayaa una garnaqsanayaa ya oo macaayo ma dacaydeynayo si xun uma hadlayo haddii kala dacdeer macadayriya shimbirkiisu waxaan noqonayaa un dee nuucooga marka ilaahayga ma dhigin wax badan baan xiirinaya wax badan baan ka dhowrsanayaa marka waxa weeyaan dee calamtarana soo dhaaf weeyaane bahashii caawa waxaan u siixan waayay ilaa shalay aan u soo jeedo inuu gabadhayada diamanta waxa weeyaan dee una geyin ya hawl sidan iminka Nigeria Jamaicanka London wax habla Soomaaliyeed balanbalay ee lagu sameeyay madiido ama la baabay marka dambe isa soo garta oo maartay waa goor xariir fandaal kala dhaceen ya balanbalay London way badan yihiin gabadhani uma qalanto qof ay isku wada jaan qaadi karaan ma ahayn ilaahay baa wax intan ka waday waxay ahayd maartay mucjiso ilaahay ugu dambi dhaafiyay walaashay qaali Safiya Tusno ya marka waxa weeyaan wixii markii laga rugay markii barnaamijka aan waday ee hore oo soola engineerka aan la hadlay bulaacada xirin waqtigu igu adkaa sababtoo ah wax la doonay password iyo su'aalo in la weydiiyo Mareykan baan la hadlay waxaan la hadlay Ingiriiska Mareykan baan la hadlay sim card baa la doonay waa la helay waa nacam intuu wax ila maray adoonka ilaahay maartay engineer Abdinaasir Sola ilaahay ka jisaysiyo habeen dhan iyo maalmin seexan hawshii markaa ku guuleysanay boqor burmada waa ka yiri farxaano baashiya sugno sidii baan ku sugaynay hawshii aan sugaynay maslaxada laga taliyo oo iyadiina mar walba ay leedahay aniga in la ii argudo oo xiliyataabad hay noqoto ma doonayo oo magacayga dagaal oo qof ku dhinto ilaahay baa iga sareeyay ma dhisayo walaashay waa afkeey inuu qof ku dhinto ama wuxuu ku gaaro dambiga ana qaba aakhir halkan maraya magaxumadii ama dibtii leegu sameeyay inaan dib dad u geysto gabadh aan waxba ka ogeyn oo dulmiga iyadu sameeyeen inay tolkay hay dilaan ama nin hay kala dilaan de waxa weeyaan arinteedii baa meesha lagu sii galgalanaya tolkay maartay u shaadhigan walibana walaalkeed xarka lagu haya inuu la dhexmaro oo ku alle ku aaqan u arko haw maartay ka talaabsado ee iyada ka hor joogtay oo annaga ka hor joogno oo intii garaad la ka hor joogtay waa nin sidiisa nin walbana gabadh buu la dhashay gabadh buu dhalay gabadh buu qabaa hooya dhashay aaqan ama amazonian qolada maartay diintu wali gaarin ee bilaa dhaqanka isaaq waxa lagu yaqaanay sokiila laha Hargeysa hooyadii fanka iyo dhaqanka marka isaaq dad isqabto oo xishoodo oo milgalaho wax sooro oo wax bixiyo oo dhaqan leeyahayna dhaqan biiskani ee wax weyn khudradda kolkay baxdaba badna way uraano maartay way qurmaan badna waa la cunaa oo aadamaha ku nool bil aadankuna waxa weeyaan la isma dhadhamiyay waxa weeyaan barbaa jira quruno sida dadka ugu dhex jira marka de isaaq anu imika jilib sheegi maayo ese waxay baashi way markay ku shareerantay waxay joogtaa maanta isaaq iyo gadabuursi waa dhaqan baan lahayn herbeegti baan lahayn bahashi waxa weeyaan waa in la farguraa hanjabaadii iyo lilmadii walaashii ka dhacaysay haddana inuu maanta intuu xabad u qaato uu geysto meel cidla ah oo sidaa yiraahdo
oo baaskoolad madaxa ka saaro imikan ku gogeyno bulaacada ku rid ana meeshan xukuma naya sidoo ula hadlayay qofkii damiir leh ee dadnimo leh ee Soomaaliyeed ee dhaqan leh ee diin leh dhiiga kacaya waxa weeyaan markaa arintu aanadaatay dabadood la qabay tolkay waa dad maxaa ka iman ka fikra inagu kiciyo ma wax walbana hubsiimo u baahan yahay wax walbana deganaasho ana xalay haddii aninka meel uu ka dhow yahay aan garanayo wallaahi oo billaahi tiirka la saaree wax weeyaan laban kala goyn lahaa dese ilaahay alxamdulilah rabbil caalamiin waa bir ramadaan imika ma xanaaqsani ma caraysni adduunka wax walba oo dhacaano muqdisho oo joogaba 800 qof ayaa daqiiqad gudahood nafta ka wada baxday ya waxa weeyaan ilaahay samri iimaanha naga siiyo iyagana ha u naxariisto shayaadiintii dishanay ilaahay maartay shirkooga ilaahay na dhaafiyo ilaahayna naga soo afjaro marka waxa weeyaan de magafa inuu hargeysa ku nool yahay oo ila shabaabku waa kuwa dadka weydilayaan nafta ka baxaysa de walaashay inta soo jeer baa la dilay ya oo taas u dambeysay meed maxaa u dambeeyay kala sii shido waxa weeyaan dawladda Soomaaliland haday la safatay baashi habar sida ninkan de dhulka nala dhacay isaga ila baashi sama soo dhaafayo de YouTube-kiisu shilinka yar buu ku eeganaya isaga iyo qaar badan oo kale de anan istaahilin inaan magacooganaas halkan ka sheego ama aan ku hadaaqo aan ka hadlo xaraan bay iga tahay marka waxa weeyaan hilibka walaasha eebtada kun ogtay ko looma sheego inay asturaan oo maartay go'a saaraan bay hayda inay YouTube ku kacsadaan oo caaw oo dhan mid kasta oo maartay wax magarati iyo hawsa isticmaalo waxa weeyaan waa sabankan iyo dhaqankan laga tagay iyo diracnimadii iyo dahabkii dhaqankii Soomaaliyeed ee isku naxariisanayay diinta lahaa ee asluubta lahaa oo in badan ay ka tagtay ilaahay soo hadiyay waxa weeyaan qolada dhaqanka ee isaaq ninka ragga looga fadhiyo walibana tolkay ma imanaya hargeysa wala burcu tagi wala hargeysu tagi wala meel bu tagi gobolkooga ha loogu tago oo iyaga dibanayaal ya waxa weeyaan gabadhii waa in magteedii la bixiyo dhiigeegii la bixiyo iyo gefka la galay sidii tolnimo la arki jiray ee dhaqan la arki jiray ay geedka soo fadhiistaan gogasha dhigaan ka garbaxaan maartay Sheikh Abdullaahi Shacali Jawhar waxa weeyaan sheekh albaladkii Soomaaliland ma Soomaaliyeed oo walibana dadkii goobjooga u ahaa maartay udub dhaxaadka raggii taagi magaca ama dawladda sheegaysiin raggii maartay soo taagay oo maartay goobjooga ah oo marxaatiga nool ah xamastiisi waa inanta adeer buu yahay ya in lagaga xishoodo oo la yiraahdo war haw isaaqde hadda taas daba qabtade ila dhaqan baan lahayn sheekh albaladkii ay xurmeynayeen inantiisii suuqa la warwaro oo mid caaqo diin iyo iimaan lahayn takra labaad isagoo diintii rab ilaahay caayaya buu miiliyaha ku jira ninkani waa horta isagu waa de wax weyn diintu ka baxay because we publicly ay ugu jirtaa isagoo diintii iyo ilaahay caayaya marka waa in horta dib u muslima oo maartay ashhaadada dib loogu qabtaa waa in anaga ninkaasi uu maanta hargeysa tamashlayn oo kolba Facebook iyo kuwa malaayacniya halkan sidaa yeelayo ma qabino waa qabayo qabniin iyo waxa telefon ka hadii xabada hadaysatid ama si international waxay ku taalaa Muqdisho xuquuqul insaanka xafiisyadoodu Muqdisho ku taalaa ku yeelan Somaliland
waxaan ka rabnaa sidii ugu dhaqsaha badan leh sharciga inay dabaqaan oo ninkaasi noo laafiyoon Hargeysa dhexdeeda